nin la yiraahdo Zack ayaa si farxad leh musqusha ugu kaadinaya. Ilbiriqsiga xiga Caaro ayaa si toos ah uga soo baxda suuliga. wax walba waxay bilaabmeen shalay. intii uu Fadim wareysanayay khiyaanoolaha Gusaf wuxuu maxbuuska ku jirdilayay isagoo adeegsanaya caarooyin bahalo ah oo uu taray saynisyahanka Baffle. caaro weyn ayaa si tartiib ah uga soo gurguura tallaabta Gusaf ilaa wejigiisa. Gusaf cabsi darteed ayuu jirkiisa oo dhan la gariiraa. Baffle oo ag taagan ayaa mar dambe daawan kari waaya. isagoo xanaaqsan ayuu Fadim ku canaantaa naxariis daridiisa. Baffle wuxuu sheegayaa inuu caarooyinkan u taro balse uusan u tarin inay cid waxyeeleeyaan. laakiin Fadim arrintaas wax dan ah kama laha. wuxuu Baffle ku amraa inuu dufcadii ugu dambeysay ee caarooyinka diyaarad saaro oo loo diro Colombia si cilmi baaris dheeraad ah loogu sameeyo. haddii Baffle diido isaguna wuxuu dhadhamin doonaa dhimashada. isagoo aan lahayn doorasho kale Baffle wuu adeecaa. maalinta xigta caarooyinka waxaa lagu raraa sanduuqyo alwaax ah waxaana si qarsoodi ah loogu geliyaa qaybta xamuulka ee diyaaradda. laakiin wax yar kadib markii diyaaraddu kacday waxay si lama filaan ah ula kulantaa gariir yar oo hawada ah. sanduuqii caarooyinka ku jireen ayaa rogma oo si xoog leh dhulka ugu dhaca. Baffle oo fadhiya safka ugu dambeeya ayaa isla markiiba walwal bilaaba. wuxuu aad uga baqayaa in wax xun ku dhacaan caarooyinka hoose ku jira. sida muuqata walwalkiisu waxba kama madna. wax ayaa gudaha ka riixaya sanduuqa oo furaya kadibna caarooyinku mid mid ayay uga soo baxaan. xilligan mid ka mid ah shaqaalaha diyaaradda ayaa si daciif ah u maqasha wax ka dhex dhaqaaqaya qaybta xamuulka iyadoo shaqadeeda gudanaysa. waxay si degdeg ah ugu degtaa inay hubiso laakiin isla markaas diyaaradda ayaa mar kale gariirta. shaqaalihii diyaaraddu way liicdaa oo waxay ku dhowdahay inay dhacdo. waxay ku qasbanaataa inay dhulka isku qabato oo si tartiib ah ugu gurguurato sanduuqii dhacay. laakiin wakhtigan sanduuqu mar horeba waa madan yahay. markay ku dhowdahay inay istaagto caaro weyn ayaa si tartiib ah uga soo gurguuranaysa mugdiga iyadoo kusoo wajahan. wax yar kadib diyaaraddu ugu dambayn way degto. laakiin gudaha qolka duuliyaasha digniin ayaa si lama filaan ah u dhawaaqda. nidaamku wuxuu ka digayaa in qaybta xamuulku aad u kulushahay. duuliye ku-xigeenka ayaa isla markiiba kacaya wuxuuna u dhaqaaqaa inuu isagu hubiyo qaybta xamuulka. dhanka kale Baffle weli wuu walwalsan yahay. weli wuxuu ka fikirayaa caarooyinka hoose ku jira. wuxuu weydiistaa shaqaalaha diyaaradda ee Elsa inay u kaxayso si uu u hubiyo sanduuqiisa laakiin Elsa waxay sii wadaa inay u sheegto inuusan argagixin. waxay ku celcelisaa in uu ahaa oo keliya gariir yar oo hawada ah isla markaana aysan jirin wax dhibaato ah. waxay sidoo kale Baffle xusuusisaa inuusan diyaaradda dhexdeeda iska wareegin. isaga oo aan haysan doorasho kale Baffle wuxuu dib ugu fadhiistaa dhinaca kale. kaaliyaha duuliyaha wuxuu gaadhaa qaybta xamuulka. isagu haba yaraatee ma dareemo in caaro ay si aamusan uga daba socoto gadaashiisa. isla wakhtigaas Zack wuxuu galaa musqusha isagoo diyaar u ah inuu geliyo muraayadaha indhaha ee contact lenseska balse caaro yar ayaa si toos ah ugu gurguurata sanduuqa muraayadaha. markuu Zack gelinayo muraayada indhaha wax fikrad ah kama haysto in caaradu si toos ah ugu gashay ishiisa. kadibna xanuun fiiqan oo kedis ah ayaa ku dhaca wuxuuna bilaabaa qaylo xoogan. dhanka kale kaaliyaha duuliyaha wuxuu qaybta xamuulka ka helaa shabakad caarooyin aad u badan. wuxuu sii socdaa gudaha dabadeedna wuxuu arkaa wax argagax leh. gabadha adeega diyaaradda ee hore loo waayay ayaa mar hore si adag loogu duubay shabag caaro. isla markaas wuxuu gadaashiisa ka maqlaa dhawaaq wareegaya oo tufaya. kaaliyaha duuliyaha ayaa si tartiib ah dib ugu jeesta wuxuuna arkaa caarooyin aan tiro lahayn oo ku dul gurguuranaya dhammaan qaybta xamuulka. qayladiisa ayaa isla markiiba gaadha qaybta rakaabka. Elsa waxay maqashaa buuqa waxayna si degdeg ah u samaysaa marmarsiinyo ay ku dejinayso rakaabka balse wax fikrad ah kama hayso in khatarta dhabta ahi ay mar hore ka soo baxday qaybta xamuulka. dhanka kale Zack waxaa hadda isha ka qaniinay caaro. dhiig ayaa ka soo daadanaya geeska ishiisa bidixna si ku meel gaar ah ayay araggeedu u daciifaysaa. isla markaas hal caaro ayaa isku soo dejisa dun xariir ah waxayna isku daydaa inay afkiisa gasho balse rakaab hurday ayaa gacantiisa kor u tuura oo si kama ah caaradii dhinac uga tuura. dhinaca kale Zack wuxuu isku dayaa inuu joojiyo dhiig baxa ishiisa sidaas darteed wuxuu isticmaalaa xarigiisa qoorta si uu u duubo ishiisa bidix intii uu awoodo. hadda waxaa sii kordhaya caarooyinka ku jira qaybta rakaabka. mid ka mid ah ayaa si qarsoodi ah ugu koraysa lugta surwaalka nin waayeel ah waxayna si xoogan u qaniintaa. Elsa waxay si degdeg ah ninka waayeelka ah ugu kaxaysaa si ay dhaawaca u eegto halka rakaabkii kale ay ku soo urureen iyagoo daawanaya kana helaya xiisada dhacaysa. laakiin Baffle mar hore ayuu fahmay. tani waxay u badan tahay inay tahay falka caarooyinka wuxuuna gudaha kasii dareemayaa walwal sii kordhaya. dhanka kale digniinta qolka duuliyaasha ayaa weli si joogto ah u dhawaaqaysa balse kaaliyaha duuliyaha weli ma soo noqon. isaga oo aan haysan doorasho kale. duuliyihii wuxuu shiday nidaamka duulista otomaatiga ah autopilot wuxuuna isu diyaariyey inuu isagu hoos ugu dego qaybta xamuulka. dhanka kale Zack mar dambe uma adkaysan karo xanuunka ishiisa wuxuuna sii daayaa qaylo dheer. markii rakaabkii bannaanka joogay maqleen qaylada isla markiiba waxay weydiiyeen gabadhii adeega diyaaradda waxa dhacay. Elsa oo weli aan waxba ka warhayn waxay samaysaa marmarsiinyo kale oo degdeg ah waxayna dejisaa dhammaan rakaabka. dhanka kale duuliyihii wuxuu gaadhaa qaybta xamuulka wuxuuna helaa laba meyd. kadibna wuxuu arkaa kooxo badan oo caarooyin ah oo meel kasta ku gurguuranaya. markii duuliyuhu dib ugu soo laabtay qaybta rakaabka mar hore ayuu dhiig ku wada daboolnaa. wuxuu si cod dheer ugu qayliyaa qof walba inuu u cararo dhabarka diyaaradda. markii Elsa aragtay duuliyihii oo dhulka ku dhacay ugu dambayn waxay garatay inay qaybta xamuulka ku jiraan caarooyin qaniina. duuliyihii miir beelay isla markaas Joy wuxuu arkay caarooyinkii oo ku soo dhowaanaya. qof walba wuxuu bilaabay inuu u cararo dhabarka diyaaradda. rakaabkii gaabiska ahaa waxaa si degdeg ah madaxa ilaa cagaha uga wada buursamay caarooyin waxaana loo qaniinay ilaa ay dhinteen. Zack oo weli ku xaniban musqusha wuxuu maqlayaa buuqa bannaanka ka socda
wuxuuna rabaa inuu bannaanka u baxo si uu u eego, laakiin albaabka musqusha ayaa si lama filaan ah u xirmay mana furmayo si kasta oo la isku dayo. Sidaas darteed, Zack nasiib ayuu yeeshay wuxuuna ka badbaaday masiibada oo dhan. Iyadoo la ordayo, Elsa way turunturootay oo dhacday. Caaro ayaa isla markiiba ku booday laabteeda. Laakiin Karen, oo dhaqso badan, waxay qabatay qalabkii dabdamiska waxayna caaradii ku burburisay. Hal mar isla waqtigaas, nin kale dhabarkiisa waxaa ku dul socday caaro weyn. Karen si geesinimo leh ayay mar kale u booday waxayna si dhaqso leh ugu dishay boorso. Kuwa kale ayaa dagaalka ku biiray. Qof walba wuxuu qabsaday wax kasta oo uu heli karo wuxuuna bilaabay inuu caarooyinka mid mid u dilo. Ugu dambayn, iyagoo wada shaqaynaya, waxay hadda meesha ka saareen caarooyinkii ku hareeraysnaa. Laakiin waqtigan waxay ahaayeen kuwa aad u daalay oo si xun u argagaxay. Karen waxay qof walba u sheegtay inay yara nastaan sababtoo ah waxa xiga waxay la kulmi karaan dhibaatooyin ka sii waaweyn. Dhanka kale, caaro weyn ayaa mar hore gaadhay qaybta darajada koowaad First Alas waxayna bilowday inay si aan kala sooc lahayn u weerarto rakaabka. Mid ka mid ah ragga ayaa dhegaha ku watay qalabka dhegaysiga mana oga waxa gadaashiisa ka dhacaya. Isla markaas sunta caarada ayaa ku daadatay garabkiisa. Markii uu ugu dambayn dareemay in wax khaldan yihiin oo uu isku dayay inuu cararo, aad bay u daahday. Dhanka kale, dadkii yaraa ee badbaaday waxay ku dhumanayeen qaybta dambe ee diyaaradda. Qof walba wuxuu ka hadlayay sababta ay caarooyinkani ugu badan yihiin diyaaraddan. Raaxadda caarooyinkuna gebi ahaanba caadi ma ahayn. Isla markaas, Bafle oo muddadan oo dhan dhuumanayay ayaa soo baxay. Wuxuu qof walba u sheegay in isaga uu yahay qofkii caarooyinkan diyaaradda keenay. Markii Gray iyo Thompson maqashay arrintan, aad bay u xanaaqday waxayna feed ku dhufatay Bafle. Bafle wuxuu sheegay inuu Amaro fulinayay oo keliya. Hadda oo rakaab badan ay u dhinteen arrintan darteed, aad ayuu uga qoomameeyey wuxuuna si daacad ah uga raali geliyey qof walba. Elsa iyadoo xanaaqsan ayay aflagaadaysay, kadibna si khasab ah ayay isu dejisay. Waxay garatay inaan hadda la joogin waqtigii eed la isugu jeedin lahaa. Waa inay marka hore helaan hab ay diyaaradda ku dejin karaan. Laakiin dhibaatadu waxay ahayd in duuliyihii iyo kaaliyihii duuliyahuba shaqada ka baxeen. Elsa waxay sheegtay in qof ay tahay inuu galo qolka duulista oo uu mar kale la wareego diyaaradda. Isla markaas, albaabkii musqusha ayaa si lama filaan ah mar kale u shaqeeyey. Zack ugu dambayn wuu soo baxay. Wuxuu soo jeediyey in Karen loo daayo inay diyaaradda duuliso. Kadib oo dhan waxay horay u qaadatay casharo duulimaad. Dhammaan dadka meesha joogay, iyada keliya ayaa lahayd khibrad duulimaad. Laakiin Karen waxay sheegtay in markii ugu dambaysay ee ay duusho ay ahayd waqti aad u fog. Ma ballanqaadi karto inay weli awoodo. Intaa waxaa dheer, tani ma ahayn diyaarad yar ee waxay ahayd diyaarad rakaab oo weyn. Si kastaba ha ahaatee, doorasho kale ma jirin. Sidaas darteed qof walba wuxuu taageeray Karen inay duuliso. Dhanka kale, weli waxaa qaybta weyn ku hadhay laba qof oo badbaaday, laakiin agtooda waxaa joogtay caaro weyn. Labadooduba way taagnaayeen iyagoo aan dhaqaaqayn. Midkoodna ma dhiiran inuu dhaqaaqo. Laakiin mid ka mid ah ragga si uu fursad ugu helo inuu baxsado, si ula kac ah ayuu shanlo ugu tuuray dhinaca ninka kale. Codkii ayaa isla markiiba soo jiitay dareenka caarada, waxaana ninkii kale si degdeg ah u dishay caaradii. Ninkii wuxuu mooday in qorshihiisu shaqeeyey, wuxuuna si qarsoodi ah ugu farxay naftiisa. Kadibna si degdeg ah ayuu ugu cararay musqusha. Laakiin ilbidhiqsigii uu albaabka furay, koox caarooyin ah ayaa ku dul daadatay. Dhanka kale, iyadoo qof walba dhiirigelinayo, Karen ugu dambayn way aqbashay. Kooxdu waxay diyaarsadeen hubkoodii ku meel gaarka ahaa, waxayna bilaabeen inay u dhaqaaqaan qolka duulista. Intii jidka lagu jiray, waxay la kulmeen caarooyin aan tiro lahayn. Kadib dagaal dheer oo ay ku garaaceen kuna burburiyeen, waxay caarooyinkii u dileen mid mid. Ugu dambayn, iyagoo wada shaqaynaya, waxay Karen ku gaadhsiiyeen albaabka qolka duulista. Isla markaas, Karen waxay maqashay neefsasho degdeg ah oo culus, waxayna ogaatay in duuliyihii weli neefkii ugu dambeeyey ku jiro. Markii duuliyuhu ogaaday in Karen ay diyaaradda dejin doonto, wuxuu adeegsaday xooggiisii ugu dambeeyey si uu u taageero. Laakiin ka hor intuusan dhammaystirin lambarkii sirta ahaa oo dhan wuu geeriyooday. Karen si lama filaan ah ayay u istaagtay iyadoo aan garanayn waxay samayso. Bilowgii horeba kalsooni ma lahayn. Hadda waxay haysatay albaab qolka duulista ah oo aanay furi karin. Bannaanka qolka duulista, dadkii ilaalinayay waxay arkeen caaradii weynayd oo si tartiib ah ugu soo gurguuranaysa. Qof walba si degdeg ah ayuu u dhuuntay, laakiin ma aysan ka baxsan karin dareenka caarada. Shaqaalihii duulimaadka ee ragga ahaa, Kieran ayaa si degdeg ah loo arkay. Markii Elsa aragtay Kieran oo khatar dhimasho ku jira, geesinimo ayay isu ururisay waxayna isku dayday inay la dagaalanto caarada, laakiin hubkii gacanteeda ku jiray aad ayuu u yaraa. Ugu dambayn, Elsa iyo Kieran labaduba waa la dilay. Dhanka kale, Karen weli waxay marar badan isku dayaysay lambarka sirta ah iyadoo aan ogeyn in caaro si aamusan ugu soo dhowaanayso. Ilbidhiqsigii ugu dambeeyey, Karen ugu dambayn waxay furtay albaabka qolka duulista. Si degdeg ah ayay gudaha ugu carartay waxayna albaabka u xidhay sida ugu dhaqsaha badan. Laakiin markii ay gudaha gashay, waxay ogaatay in caqabada dhabta ay hadda bilaabanayso. Karen waxay si degdeg ah isku dayday raadiyaha si ay ula xiriirto xarunta hagista, laakiin calaamada ayaa xumayd mana xiriiri karin si kasta oo ay isku daydo. Kadib si lama filaan ah ayay u xasuusatay in aabaheed uu ahaan jiray duuliye. Waxay qabatay taleefankeeda waxayna wacday. Si la yaab leh, wicitaankii wuu qabtay. Markii aabaheed codkeeda maqlay, isla markiiba wuu garanayay in wax khaldan yihiin. Karen waxay u sheegtay in dhammaan duuliyaashii diyaaradda ay dhinteen, caarooyina ay meel kasta joogaan, isla markaana iyada keliya ay hadhay si ay isku daydo inay diyaaradda dejiso. Aabaheed wuxuu isku qasbay inuu deganaado wuxuuna u sheegay inay dib u dejiso nidaamka maamulka duulimaadka, kadibna damiso autopilotka oo si tartiib ah u yarayso awoodda matoorada. Isaga ayaa la xiriiri doona xarunta hagista. Laakiin ka hor intuusan hadalkiisa dhamaystirin, calaamadii ayaa si lama filaan ah u goday. Halkaas wixii ka dambeeyey, Karen keligeed ayay ahayd. Dhanka kale, dadkii yaraa ee bannaanka joogay weli waxay la dagaalamayeen
dejiyaan caaradii weynayd. Bafle xitaa wuxuu isku dayay inuu la hadlo dareenkeeda. Wuxuu rajaynayay in maadaama uu isagu koriyey caarooyinkan ay u naxariisan doonto. Laakiin ilbidhigsigii xigay caaradu hal marna kama labalabayn. Waxay Bafle ka jiidatay daaqada iyadoo la baxaysa. Intaas kadib saddexdii qof ee badbaaday waxay galeen qolka duulista si ay halkaas ugu dhuntaan. Caaradii weynayd waxay markaas ku gurguuranaysay dusha sare ee diyaaradda. Zax wuxuu arkay dhaawaca daran ee Gracie soo gaadhay wuxuuna go'aansaday inuu raadiyo qalab gargaar degdeg ah. Waqtigan diyaaradii waxay ku dhowdahay garoonka diyaaradaha. Rajo yar ayaa ugu dambayn ka muuqatay wejiyadooda. Laakiin isla markaas diyaaradii waxay mar kale gashay gariir aad u xoogan. Bet iyo Karen waxay ka walwaleen Zax, sidaas darteed waxay ka baxeen qolka duulista si ay u hubiyaan. Waxay si toos ah u arkeen Zax oo noloshiisa ula dagaalamaya caarada. Markii Zax u maleeyay inuu ugu dambayn guulaystay, ilbidhigsigii xigay lug caaro ayaa si toos ah uga muday jidhkiisa. Isla waqtigaas Gracie waxay furtay albaabka degdega ah. Cadaadiska xoogan ayaa isla markiiba caaradii weynayd u jiiday furitaanka. Laakiin maadaama Gracie aysan waqtigii ku xirnayn suunka kursiga, hawo xoog leh ayaa iyadana dibadda u jiidatay, waxaana diyaaradda laga saaray iyada iyo bahalkii. Bet iyadoo naxsan ayay dib ugu soo laabatay qolka duulista waxayna Karen u sheegtay wixii ku dhacay Gracie. Zax si xun ayuu u dhaawacmay, laakiin weli rajo yar ayaa u hadhay. Wax yar kadib diyaaradii waxay ku dhowdahay inay degto. Karen waxay isku adkaysay waxayna raacday tallaabooyinkii aabaheed baray, iyadoo si adag ugu halgamaysa inay diyaaradda xakamayso. Diyaaraddu waxay sii dhawaanaysay dabaha degista. Qof walba neefta ayuu ceshaday. Markii diyaaradii ku dhowdahay inay istaagto, caaradii ku dheganayd saqafka sare ayaa xoogga dhaqaaqa awgiis ka dhacday waxayna ku dhacday taayirada hoostooda, halkaas oo lagu burburiyey dhiig iyo hilib isku dhex yaacsan. Iyadoo Karen gacanta ku hayso, diyaaradii si guul leh ayay u degtay. Qarowgan caarooyinka ee hawada sare ka dhacay ugu dambayn hadda wuu dhammaaday.